geeska Afrika ayaa mar kale isku bedelaya goob ay isha ku hayaan quwadaha caalamka iyadoo ay cirka isku sii shareerayso xiisada u dhaxaysa Turkiga, Soomaaliya, Somaliland iyo Israa'iil. Arrimahan ayaa salka ku haya aqoonsi madax bannaani iyo loolin istaraatiiji ah ayaa si tartiib u noqonaya mid wax ka bedeli kara qaabka awoodeed ee gobolka geeska Afrika. Asalka xiisadani waxa weeye muddo ka badan 10 sano Turkigu waxay si xooggan u xoojinayeen joogitaankooda Soomaaliya, waxaana ka bilaabeen joogitaanka Soomaaliya gargaar bini'aadanimo xilligii abaaraha iyo macaluusha ka jirtay gudaha Soomaaliya, balse si degdeg ah ayay ugu gudubtay maalgashi ballaaran iyo iskaashi militari. Maantana Ankara waxay ku leedahay Muqdisho saldhiggeeda ugu weyn ee militari ee dibadda, taasi oo muujinaysa sida uga go'an tahay joogitaankeeda gobolka. Xiriirkaasi maaha oo kaliya mid saaxiibtinimo, waa mid istaraatiiji oo Turkigu waxay Soomaaliya u aragtaa albaab ay ka geli karaan ugana sii gudbi karto Afrika, isla markaasina ay ku xoojin karaan saameyntooda caalamiga ah, gaar ahaan marinka ganacsiga muhiimka ee ku dhow badda cas ee loo yaqaano Bab el-Mandeb. Somaliland waxay ku dhawaaqday madax bannaanideeda iyo inay Soomaaliya ka gooday sanadkii 1991, waxaana laga joogaa muddo 35 sano inkastoo aysan weli helin aqoonsi caalami oo rasmi ah. Si kastaba, waxay dhisatay Somaliland nidaam dawladeed oo shaqaynaya, amni la isku halayn karo iyo hannaan doorashooyin oo dimuqraadi ah. Soomaaliya waxay si adag u diidan tahay aqoonsi kasta oo la siiyo Somaliland, iyadoo u aragtana mid dhaawacaysa midnimadeeda dhuleed. Sidaas darteedna waddan kasta oo isku daya inuu aqoonsado Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu si toos ah u galaya muran siyaasadeed oo culus. Israa'iil waxay 25 Disembar 2025 ku dhiiratay inay si rasmi ah ugu dhawaaqdo inay Somaliland u aqoonsan tahay dal madax bannaan. Arrintaasi waxay sii kicisay xiisadda, tanina waxay keentay falcelin degdeg oo ka timid Turkiga oo si cad uga digay tallaabo kasta oo keeni karta xasilooni darro. Arrintan ayaa noqonaysa loolanka ugu weyn ee u dhexeeya Turkiga iyo Israa'iil, labadaasi quwadood oo doonaya inay saameyn ku yeeshaan meelaha muhiimka ah ee istaraatiijiga sida geeska Afrika iyo badda cas. Geeska Afrika maaha meel caadi ah, waa marin isku xidha qaaradda Afrika, Bariga Dhexe iyo Aasiya. Maraakiibta ganacsiga ee caalamiga ah ayaa maalin walba mara meel u dhow xeebaha Somaliland, taasi oo ka dhigaysa meel muhiim u ah dhaqaalaha iyo amniga caalamka. Qof kasta oo saameyn ku yeesha gobolku wuxuu si dadban u saameynayaa ganacsiga caalamiga, tamarta iyo siyaasadda guud ee dunida. Su'aasha ugu weyn ee hadda taagan waxay tahay, ma guulaysan doontaa diblomaasiyadda mise xaaladdu waxaa lagu leexin doonaa dhinaca iska horimaad? Arrintan haddii aan si taxadir leh loo maarayn, xaaladda ayaa keeni karta kala qaybsanaan siyaasadeed, cadaadis diblomaasiyadeed, xitaa khatar amni oo ka dhacda gobolka geeska Afrika oo dhan. Dhanka kale, waxaa weli jirta fursad lagu xallin karo khilaaf iyadoo loo marayo wadahadal iyo iskaashi. Waxaa hadda ka socda geeska Afrika ma aha muran yar oo goboleed, waa ciyaar awood oo heer caalami ah. Turkigu waxay difaacanayaan danahooda Soomaaliya, Somaliland waxay raadinaysaa aqoonsi buuxda inay ka hesho dunida, halka Israa'iilna ay u muuqato inay doonayso inay ka faa'iidaysato fursadaha istaraatiijiga ah. Su'aasha ugu weyn waxay tahay, ma guulaysan doontaa diblomaasiyadda mise gobolku wuxuu noqon doonaa goob cusub oo loolan adagi ka dhaco?